taladiyo tashilaalme dadku tiicee dhibku taagnaa ninka tamartii taagtay u talaabee tuxun ku maray manta taageer 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 manta taageer 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 manta taageer 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 manta taageer taageer وحرتاجكو تلذا وديب عن تسقاني عدكو وغطور عدكو وغطور وحرتاجكو تلذا وديب عن تسقاني عدكو وغطور 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 عدكو وغطور aad iyo aad waxaan u salaamayaa u baarigayaa madasha boqoran ee beelweynta harti ay taageerada ugu muujinayso xisbul xaakimka kulmiye aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin leenahay soo dhowaada waddanku wuxuu galay doorasho maadaama doorasho galayna innagu marnaba dhexdhexaad kama nihin siyaasadda Soomaaliland ka jirta ciidayna difaacda protectionka aynu hoos joogno iyo nidaamka dawliga ee xisbul xaakimku uu hogaamiyo ka ayaa inaga inoo ballana kaasaanu idinku ilaalinaynaa kaasaanu idinku ognahay duruufaha iyo xuquuqaha iyo muwaadin ahaan waxaad xaq u leedihiin cidda diyaarka u ah waa xisbiga kulmiye iyo muxuu ahaay hogaankiisa musharax madaxweyne Muuse Biixi Cabdi musharax madaxweyne ku xigeen Saajin iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed kaasoo ah Maxamed Kaahin waa hogaamiye idin la dhiiga idin garanaya raas iyo jifo idin yaqaana cid kasto caawa u sheegtay in ayaheedana uu abtirinayaa oo ka soo jeeda beeshan khaasatan deegaanka Burco ee aad joogtaan waxa weeye wax badan baa ka jira nabadda iyo amniga iyo horumarka iyo intaba xisbiga kulmiye waxa ka go'an qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland mid tagay iyo mid joogaba in la isku ilaaliyo muxuu ahaay xuquuqahooda loo simo aan cid xuquuq dheeraan cidina cid aanay ka sheegan bariyahan dambe waxa inagu soo kordhay qolo wadani la yiraahdo Soomaaliya soo dirtay wadani ha dhaco uu dhacayaaye cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel baynu uga soo wada jeesanaynaa taas ayaynu ku ballansanahay hartiga Burco ku sugan waxaan ka doonayaa cid imisa kaararkiisa ma haysataan xisbiga kulmiye Sawdiyaar uma tihiin inaad u codaysaan hogaamiye Muuse Biixi Cabdi Sawdiyaar uma tihiin inaad codka siisaan xisbiga uu hogaamiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed inaad soo saartaan Sawdiyaar uma tihiin qolada yaryar ee qalaanqalka wada suxufi yar oo mushahar xoogaa yar la soo siiyay iyo waxbaan arkayo meelaha ka qaylqaylinaya cidlay ka hadlayaan dad harti oo wadani galayna ma jiraan nacabku ha iska ciyaan waxaynu soo dhawaynaynaa cid kasta oo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland jecel cid kasta oo xisbiga kulmiye sababta ay ugu suntan yahay qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye gorgortan ka geli maayo qarannimada Soomaaliland midnimada dadkiisa iyo dalkiisa nabadgelyadiisa iyo xuquuqahooda inuu ilaaliyo ayuu diyaar u yahay sidii horeba u dhacday ee uu dalka u difaacayna inuu difaacu diyaar u yahay beelaha reer Soomaalilandna inuu isku hayo ayuu diyaar u yahay taasaanu idin la soconnaa fariintaanu caawa idin diraynaa waxa weeye mara kale inaad iska ilaalisaan aan ahayn taa aad gacanta ku haysataan xisbiga kulmiye codkana aad maalinta sanduuqa ku ogaataan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xisbiga kulmiye aad codka ugu ridaan codka labaadna aad xisbiga kulmiye siisaan taasi ma inoo ballan ma tahay
sidaasi ballan maynoo tahay waa biyo kama dhibcaan siyaasad cad baannu ka leennahay arrimaha beelaha harti iyo deegaannadooda oo ah nabad iyo barwaaqo iyo xasillooni inaannu ku soo dabaallo wax kasta oo jira maadaama odayaashii waaweynaa ee qarankan u soo halgamay ay hormuud ka yihiin layliga iyo ninka awrta marka laga warramayo reer miyiga ama reer guuraagu waxaa jira laba awr baa jira mid waa hayin oo gurgurshaa baa la yidhaahdaayo waxaa la saaraa alaabta mahuraanka ah ee reerka ay markaasi isticmaalaan ee muhiimka u ah midna waxaa la yidhaahdaa layli baa la yidhaahdaayo hararrada iyo waxyaabaha hadday daataan xitaa aan mushkilad badan keenayn ayaa la saaraa sababta loo saarayana waxa weeye gurgurshaaga loogu aamini waayey waxa weeye waa fudaydka iyo inuusan la haysan siyaasadda iyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland siday yihiin taa waxaa ka dhigan xisbiga amaba muxuu ahaaye wadani oo ah Xasan Sheekh oo ah Cabdirasaaq Khaliif oo ah Puntland oo ah qolyaha kale xaq jirka ah oo dhammaan qaadhaan ka soo gurtay oo lacagahoodii raba inuu cod kaga iibsado Soomaaliland caawa hooy dalkan iyo dadkani waxaa loo soo maray waddo dheer waxaannu idiin sheegaynaa inaad naftiinna iyo noloshiinnaba aad badbaadisaan taana codkiinna aad ku badbaadin kartaan laydinkama baahna wax kale sow codkiinna dalka ku badbaadin maysaan codkiinna dalka sow madaxweyne muuse bixi iyo ku-xigeenkiisa u codayn maysaan guul iyo gobonnimaan idiin rajaynayaa waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna muxuu ahaayey wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed horta beeshan caawa halkan fadhida waxay ka mid tahay dadkii magaaladan Burco ilaa iyo asaaskeedii iyo bilowgeediiba deegaanka u ahayd ee ganacsiga u ahayd ee hantida faraha badan la ku ahayd xaafadan magaalada haddii aad degan tihiin sheekha halkaa lagu siyaarto ee la yidhaahdo Sheekh Ibraahim Kaboole xaafaddiinnan uu ka tirsan yahayoo waa sheekh reer badhaneeda dadna reer Burco waxay yidhaahdaan waa sheekha lacagta dadkeedii hore ee tijaarta ahaa maxaanku dhahdaye ganacsatada lahaa ee hantida faraha badan la ku leh ayaa maxaanku dhahdaye ka mid ah badhasaabadii u horreeyey ee dalka soo marayna cali caateeye iyabaa ka mida markaa horta dad qariib ku ah magaalada Burco maahee waa dadkii magaalada Burco lahaa ee wax ku lahaa ee ka soo jeeday mar labaadka waxaan ka warhaynaayo aynu doonaynaa inaan halkan caawan ka tacsiyadeynno inkastoo aan tacsiyadaynay cali baashe cali maxamed qaaje oo ayaan dhaweytada ku dhintay fiqi fuliye waan tacsiyadaynaynaa haddii caawa aan beeshan la kulmayno inkastoo si rasmiya dowladda Soomaaliland ay u tacsiyadaysay waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraaba dadkii nabadaynta Soomaaliland qaybtii ugu badneed ka qaatay ayuu ahaa beesha iyo odayaasha hadda arrintiisii iyo nabadayntii bay u fadhiyaan fiqi fuliye waxaan leenahay arrintaa beesha mas-uuliyad baa idinka saaran qof qiimalaba halkaa inagaga baxay waxaan ku bogaadinaynaa oo fariinta faraynaa in arrintaa nabadgelyadeeda ay qayb ka qaataan sida hadda wasiirku u sheegay xilligii doorashadaynu gaadhnay dalka Soomaaliland doorashadeedii muddo 2 wiiga bisha Noofembar 13 bay dhacaysaa waxaynu doonaynaa inayn xisbiga kulmiye wuxuu idinka codsanayaa inaa u codaysaan waxayna aynu doonaynaa inay nabadgelyo inoogu dhacdo doorashadu meelahay ka dhacdaa waxaa hadda jeer lagu yaqaanaa meelaha dad dimuqraadiyaddu ka jirto meelaha nabaddu ka jirto
arrintaasaynu doonaynaa inaynu hawsheeda gallo xusbiga kulmiye aragtiyaha siyaasadeed ee uu ka qabo dalka reer Somaliland meel kastoo ay tahayba in lagu maamulo arrin nabadeed meelaha kalena ee iminka hawlahaasi inaynu doonayno inaynu nabadda ku fidinno inaynu si wanaagsan dadku isugu wada yimaado intaynu dal weynihii Soomaaliya la odhan jiray aynu kaga daweynaynba waxa weeye waa nabadgelyada dadka halkan fadhiya dhalinyaro caawa u badan yihiin hawta aynu haynaa waxa weeye dadkan iskuuladii iyo waxbarashada inta badan qayb ka yihiin waxaana aynu doonaynaa inaynu dadkeenna aynu ku baahinno aqoon waxbarasho taasaana nolosha iminka dadka aasaas u noqonaysa aad iyo aad baan idin hambalyaynaynaa binaadmigu waxa qurey uu higsanayaa waa harumar adduunyada waxay u kala xoog badan tahay waa dhaqaale iyo harumar kaasaynu doonaynaa inaynu guddigan wada higsanno kaasaynu doonaynaa guddigan inaynu dadkeenna ku abaabulno qolada xusbiyada ah ee tartanka sanadkan ka wada qayb galaya gaar ahaan xusbiga waddani oo kale xusbiga kulmiye waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye waxaynu doonaynaa dal Somaliland la yidhaahdaa inuu jiro waxaydun ka war haysaan dhowaantan madaxweynaha Somaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya heshiis bay kala saxeexdeen heshiiskaas waxaynu doonaynaa markaa waan ku kala duwannahay sababtaan ugu kala duwannahay waxa weeye waddani heshiiskaa ma aaminsanaa waa dawladaynu jaarnahay waa dawlad geeskeennana intaynan geeska Afrika ugu weyn waa dawlad aynu wax isweydaarsanayno waa dawladaynu doonayno iyaguna waxaynu ku kala beddelaynaynaa waxa weeye inayna ictiraafaan innakuna inaynu cad yaroo dhula siinno oo aynu ka kala kiraysanno oo maraakiibtooda ay dhigtaan maadaama aanay bad lahayn Jabuuti 7 saldhig baa yaalla oo ciidan cir leh oo ciidan dhul leh oo ciidan bad leh innaka koonna cadka yaraynu siinaynaa dekad ganacsi maaha mid wax kala soo degaan maaha maraakiibtooda qudhay dhiganayaan marka waxaynu doonaynaa adduunyadana cilaaqaad bay leedahay waxbay kala iibsanaysaa waxbay kala kororsanaysaa waxbay kala iibsanaysaa waxbay isweydaarsanaysaa innakana waxa inoogu daranaynu maanta doonaynaa waxa weeye waa inaynu noqonno dawlad la ictiraafsan yahay golayaasha qaramada adduunyada ay ku kulmaan sida jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa sida ta Afrika inaynu qayb weyn ka noqonno oo wax fara badan ay nagaga maqan yihiin waxaynu doonaynaa markaa bacdama aynu hawlahaas wada soconno arrimahan waxaa diidan dawladda Soomaaliya cidda qudhay shuraakada kuleeyahay waa xusbiga waddani aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan jecelahay inaynu nabadgelyada ka wada shaqayno inaynu maxaanku dhahdayey harumarkana ka wada shaqayno aad iyo aad baan idin hambalyaynayaa aad iyo aad baan idinku soo dhowaynaynaa aad iyo aadna waa u mahadsantihiin xaflad kale ayaan hadda tegaynaa intaasna waa nagaga raalli ahaanaysaan kulamo dambaynu yeelan doonnaa waanaynu wada shaqayn doonnaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin